subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee VOA mawjadaha gaagaaban ee 19, 25 iyo 49 mitirban warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4 galabnimo. haweyska Washington, martida microphone-ka, faaqidaada toddobaadka, caafimaadka iyo qoyska, intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19, 22 iyo 25 mitirban. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysidii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA. halkaad weligiisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. doorashada Mareykanka ee lagu doortay madaxweynaha cusub Donald Trump ayaa dunida oo dhan siyaabo kala duwan looga arkay, aragtiyo kala duwanna laga bixiyey. madaxda qaramada iyo siyaasiyiinta marka laga tago, abwaan Cabdirasaaq Bulqaas ayaa hees la magac baxday Donald Trump sameeyey, waxaana ku luqeynaysa fanaanada da'da yar ee Deeqa Afro. waryaheena Jaamac Buule Jaamac oo la sheekaystay Deeqa Afro ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey fikirka heestan ciddii iska lahayd. horta jaamacow ayaamahan dambe waxaan moodaa inaan aada ugu foognayn doorashooyinkan ka dhacaya Mareykanka oo runtii aad moodid kuwo ka duwan kuwii hore oo dhici jiray inay ka duwantaad moodaa ka yara xamaasadaysan tahay. marka sidaa la aligeed fikradda heesta anaa kala fikirka heesta waxaan ka dalbaday abwaankayga abwaan Cabdirasaaq Bulqaas, wii dhalinyar oo runtii wariyana ama laxamiistana maasha Allah, oo maxaan ku idhahay isagoo mar walba ku cabira dareenkiisa ayuu ku cabiraa murtidiisa ku saleeya. marka heesta sidaasaan uga dalbaday. ulajeedada heesta ayaan bal mar dhow wax kaa weydiin doonaa, balse waxaad noo sheegtaa qaybo ka mid ah ereyada heesta. ereyada heesta waxaa ka mid ay ku bilaabanaysaa dadkaygan la hadlaya Mareykanku waa dalweyn dunaa laga helin ma jiro isana waa dawlad qura. marka ulajeedada iyo dulucda heestani maxay tahay? jaamaco heestan waxay xambaarsan tahay aragti ama waxay ka hadlaysaa heestan marka ugu horeysa oo ugu muhiimsan waxa weeyaan dhexgal, si ay ummad isu dhexgasho, si ummadu ay isku fahanto maxaan ku dhahay ayna ku wada noolaadaan. marka heestan horta marka ugu horeysa ugu muhiimsan waa isdhexgal bay ka hadlaysaa. waa garta deeqo, heesta laba tuduc bay ka kooban tahay, laba qaybood. beydka hore wuxuu ka hadlayaa dadka Soomaaliyeed ayuu wacgelinayaa, beydka dambena Donald Trump ayaad kula hadlaysaan. beydka dambe waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa ninka madaxweynahaayoo la doortay haddii codkaygu gaarayo dadkan reer galbeedka ah ayaan waxaan oran lahaa in ay markay kabsamayaan iyo markay dadkooda ku awkacsanayaan waxyaalahan anagu haddaan qaxootinahay ma xamili karno, oo runtii waa qaxootigu salka kama degana. marka wayna damqaysaa waxyaalaha qaarkoodoo ma xamili karno. marka heesta waxay ka hadlaysaa qaarkaas. marka aad heestan soo saartay Donald Trump, maxay noqotay falcelinta ama dadka dhegaystayaasha heesahaada la socdo maxay kaa yidhaahdaan dhinaca Facebooka iyo meelaha heesta aad ku soo saartay sida YouTube-ka oo kale? wax fariimo noocee ayaad ka helaysaa? wallahi horta dadku way kala fikir duwan yihiin oo dadku isku mid ma ahan. ilaahay baa dadka badiyey, waa 5 farood. laakiin dee inta caqliga u saaxiibka ama wax meel fog wax ka arki karta way soo dhaweeyeen, runtii ugu mahadceliyeen runtii oo weliba dadka ku nool maxaan ku lahayto Mareykanka ha u badnaadeen wax badan baa laga soo mahadceliyay. wallahi wax ma nagala wadaagi kartaa mid ka mid a dadka kuu soo jawaabay ee arrintan kaaga mahadceliyey hadallada ay yiraahdeen? runtii waxaa ka mid ahaa waxyaalo badan oo ay dadku iskaga mid ka ahaayeen
ahayd in ay niyad dhis u tahay dadka Maraykanka ku nool oo ay lahaayeen runtii thank you heestan waxay noo tahay niyad dhis siiba ardada ama maamooyinka runtii aan waxa inta badan dee aan afkana ama garanaynin ama maxaan ku dhahay dhaqanka reer galbeedka ku adag yahay ayaa macnaha inta badan iigu mahadcelinaya igu lahaa heestan waa dhiirigelinteena aad ayaad u mahadsantahay thank you walaaladaa mudan heeskaasi deeqa afro ay nagu luqeynaysay ayaan dhegeystayaal jecelnahay inaan kusoo gabagabeeno baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a